qodobkaasi xaaladda guud ee Puntland iyo waqooyi galbeed inta aan si qoto dheer ummadda Soomaaliyeed ugu bayaanin xalay waxa magaalada Dhuusamareeb macadka Heritage aabihii federaalka galmudug oo halka lagu qabtay ka hadlay firdhiyo wuxuu sheegay dhibanaha ugu dambeeya ummadda Soomaaliyeed inuu isagu yahay khudbadiisa falcelinta ka timin oo dul istaagaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta bixiyay waraysi oo sheegay in aysan hadda Israa'iil wax xiriir lahayn hayeeshee ay dhici karto in isaga iyo Israa'iil Soomaaliya Israa'iil ay yeeshaan xiriir falcelin badan baa ka timi qodobkaas isagana si qoto dheer baa u dul istaagay waxaan ku hormaraya al-shabaab oo magacii bedelatay markii jannadii koonfur joogtay ee fashilantay oo gudahoodana ay isqabteen xogaha kale oo idihayo waxa kamid ah bisha February 2026 waxa loo ballansanaa in al-shabaab lagu weeraro diyaaradaha droniska wajigii u dambeeyay oo al-shabaab oo aan maqlayso wajigii u dambeeyay la qaadaya Soomaaliya diyaarado soo gadatay arintaas oo dhan baa socota shaqo socota intaas oo dhan waxay ahayd inay xukuumaddu al-shabaab ay ku soo afjarto hayeeshee magaciina waa bedesheen ururka argagixisadii ahaayeen iyo nimankii ay ka tirsanaayeen Daalibaanna waxay cadeeyeen inay ka baxeen haddana ay diyaar u yihiin wada hadal waa markay arintii qaraxday oo ciidamadii meesha ka dagaalamayay raxweyntii iyo hawiyii ay yiraahdeen jannadii xamar joogtay waa ay wareegtay Hargeysa jannadii u aadeen madaxda halka ka timi marka Hargeysa ka timi Hargeysa waxa u yaala caruurtii waxa u joogta ehelkoodii hantidoodii baa taala halkan waxay rabeen inay xamar iyo garowe iyo boosaaso iyo ummadda ka iyo jawhar iyo beledweyne iyo galmudug iyo hirshabeel iyo ilaa gobolka banaadir inay daakum ka dhigaan iyaguna ay nabad ku noolaa tii waa isku fahmay ciidamadii al-shabaab waa gadoodeen gudahooda bay ka dhex taagan tahay taasaa keentay xalay inay magacaan ay bedeshaan cabeesha caalamka oo nimanka lacag siin jiray hadda kadib meel ku qoro oo lacagta siin jirtayna waa tii sanduuqii Soomaaliya lacag dambe caawimada la siinay haddii Soomaaliya la siin jiray 10 milyan kuwaana 5 milyan baa la siin jiray haddii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaaradahan saaxiibada caalamka lagu sheegay ee Soomaaliya dusha waxa uga soo tuura markay ciidanka Soomaaliya u tuurto kuwa kalena oo u tuuri jirtay saraakiisha iyo askarta waraysta qof igu beenayn kara ma jirto beesha caalamka waxaan dabada ka riixi jirtay sanduuqii markuu go'ayna waxa leeyahay xoogaaga koonfur laga qaado iyo xoogaaga hawiye iyo halka naga soo gala iyo raxweyn ornugma filay maxaa xala duqeyn oo nagu soo socota shidaalka la qodayna bariga haday carqaladeen lahayn bariga laga qodi maayo badda laga qodaya maraakiib baan ilaalinaysa taasa keentay inay magaci bedeshaan oo ilaahay hadda wada hadal baan diyaar u nahay waa soo dhaweynaya anu garaadka ummadda Soomaaliyeed haddaad garowsateen inaan jannad dambe koonfur aysa oolin oo aad ummadda been u sheegi jirteen oo aad ilaahay ka beer abuurateen oo magaca Soomaaliyeed aad ka beer abuurateen inaad hadda kadib aad soo dhawaataan ummadda Soomaaliyeed baa tiin dadkina Soomaaliyeed dhinac ka raacdaan oo iftiinka hadda usoo baxay iyo dimuqraadiyadda hadda loo guuray iyo dalkaas soo hagaagaya inaad qayb ka noqotaan waa idin soo dhaweynayna walaalaha iyaga Soomaaliyeed baa tiin haddii asaas ku sii joogi lahaydeenna bisha February waxa lagu murmi lahaa magaca al-shabaab baa jira jarmalka markaa sharciga qaadanayso hadda markaa sharciga soo qaadanayo u dambeeyay waxa la weydiiyay 142 su'aalood miya dadka jarmalka jooga waa yaqaanaan weydiiye 140 iyo labada su'aalood kuma jiro hal urur oo argagixisayo Soomaaliya waa Iraq waa Iran waa Suuriya waa Afghanistan waa wax ka jira annaga waxyagu showbeesha caalamka waxaan lacagta u siisaa waaba urur mucaarade oo aqoonsan tahay oo nimanka 30 sano isleeynay ummadda Soomaaliyeed naga qarxiyay oo nabaabiyay cid u taqaan argagixisa maba jirtaba haddii lagu dhaho hadduu qof jarmalka jooga anu wadamada kale Yurub ma garanayo laakiin dadka jarmalka jooga waraysta 100 iyo waxa lagu weydiinayaa 42 su'aal mise 144 su'aalood wey kulli waxa uga jawaabaysaa marka qof Soomaaliyeed tahay waraan waxa ka garan maayaan sababtoo ah magac Soomaalina maaha qabiil Soomaalina maaha urur Soomaalina maaha qof Soomaaliyeed kuma jiro marka waxaan caalamka oo waxay u yaqaaneen inay yihiin urur mucaarada waxay soo dhaweynayna haddaad Hargeysa aadaysaan oo jannadii xaggaas ay u wareegtay aad aadaysaan ducaan idinku dareena xalalena khayr Allah yasiyo ducaa janna fiican baa soo yeelisaan ummadaas halka joogta kharimatay yahuud raacdayo abaarsa family noqdayo kuwa aad haddaad janna iyo wixii aad ummadda u sheegi jirtay ee nabida ka tahay hadday arrinka nabida ka tahay Soomaaliyeed soo dhaweynaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa hadlay wuxuu sheegay in Israa'iil hadda wax xiriir ay salahayn qodobkaas waa boonti muhiim ah inuu madaxweynuhu cadeeyo Soomaaliya iyo Israa'iil inaysan wax xiriir lahayn
Soomaaliya dalalkan caalamka ah dalalkan kale caadiga ee la macaamili karo Soomaaliya danaha gaarka kale annaguna danaha gaarka kale ee dadkeena ku nool yihiin la macaamili karno hayeeshee hadday wax isbedelaan in ay Soomaaliya Israa'iil xiriir yeelan karaan xiriirka yeelan karno maxay in baasaboorkeena dalka Soomaaliya Israa'iil lagu tagi karo in annaga keena lagu tagi karo in haddii ay dalka soo booqanayaan imaan karaan in dawlad Soomaaliyeed aan nahay ugu ixtiraamaan qadiyadaha ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliya ee faragelin siyaasadda Soomaaliya ee faragelin madaxweynuhu qodobka waa asiiba qoladii halkan ee gaalada jecleed ha annaga loo diidayaa gaalada idinka waxa idinku diidayaa waxaan maanta Hargeysa ka dhacaya oo inta calankii iyo koofiyadii Yahuudda ka soo qaato waxa xamarna kama dhici karaan garawna kama dhici karaan Kismaayana kama dhici karaan Hirshabeelle kama dhici karaan Galmudugna kama dhici karaan Koonfur Galbeedna kama dhici karaan laakiin adiga dhaqan xumadaan ah inaad maalin kasta gaal saama casho ugu xoqoto oo aad gaal la'aan aad joogi karin oo shalay laftiin laga dhigay oo madaxweynaha uusan maalin nasan soo adiga ku celcelinay waxaad u fakfakaraysid ma jahannama laga celcelinaya Soomaa annaga hadda waalantahay walaalka ku miir qabna inta lagu celcelin karo waa lagu celcelinaya dawladda Soomaaliya Israa'iil baatiri cid kaste haday la gasho heshiisyo caalamiya iyo hadii ay diblomaasiyad la sameeysanayso dawladda Soomaaliya iyada xor ah qof maseersan qof la fawata qof uqdad qaba qof isha xanuunsan qof sidii ciyaalkii emotional iska qiiroonay waba ilintu ka leedahay waxay maanta caayaan Saacid Umar Geelle oo laf dhabar u ahaa tirka dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo iyaga laf dhabar u ahaa oo maanta inay sanduuq gaar ah yeeshaan ka shaqeyn jiray shalay oo ciidankooda hubka u soo gadi jiray oo magaca oo baas oo xafiis diblomaasiyadeed u horeeyay Djibouti looga furay inay Saacidaan abaal lahayn ba ku sheegay abaal ay leeyihiin ma leh waxa la hadaad naag bali naag iyo nin xun midna abaal ma leh qoladaas waa qolo xun wey oo abaal xun wey abaalka dhul bahantay oo intaas sano isdhaleen iyo warsangali intaas sano isdhaleen ay ka waayeen miyaa Ismaaciil Umar kaaga daran waxa igu daran 130 sano waxna ugu ceeshayeen Djibouti Ismaaciil Umar Geelle marwadu qabo khadro ba dalka xukunta wakaas anagu cusaaqa haddaan saa u ogahay xataa gabdhaha taariikh ka raadinaysaan oo gabar ba aad u aragtaan ba haddii xataa la idinka qabo marwada qaranka Djibouti halkan ay ku sharfan tahay laakiin aad gabadhii aad u haysataan in Djibouti oo dhan iyada maamusha Djibouti waa dal dawlad la wey madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle madaxweyne ka laakiin hadaba rag rabtaan saa kula shaahisan aniga taariikh ba ay dhaaftay aadan Cabdullaah Ismaan Allah u naxariistay madaxweynihii dimuqraadiyadda Soomaaliya ugu horeeyay islaan eedaday buu qabay ilma diiriye Muusamataan waa reerka noogu ilbaxsan markaana Ciise Maxamuud waa waxaan dhihi lahaa ninkaas gabar naga qabay oo adeerkay way oo kula shaxal gabdhaha Ciise Maxamuud ninkii guursada madaxweyne noqda ama dhihi lahaa beesa saa idinkaaba حتى نيكي قبل ذيك الجلسة حتى تاريخ ما كده حدانيسا وتاريخنا هو على ديك بقى وداتا جي السينما يوبا أنت هاي فكتم وما بحنا ضعيفنا وما بحنا بقدين يفرين وما بحنا دتك جار كايا نباتين معها منافقنا معها خائمنا معها تاريخ ذو يكون أستاذ ديك جيسي ويكون بحدا جيسي ما دارين جيسي نمتين ولي أنا قررنا ما تصنع ما غيلين ما نكسر بيان باك شكتا ما أنت واحد صاف ترى أنت الرياضي رقيس قاعد هاي صومالي بريتش إيطاليان كولوني وأول هاللينا وسوق حتى ورياش هرجيسة شوي إسرائيل كا بلا فيسا سوقلان قارن إثيوبيا كدجن أرنول كامرين هالكاسيو وتشالي كسي قاتين دلكو قلكي هو قوي قلبت كسي قاتين قارن خصب باكون نقطتين في زيال قوستان كل يوم أنت نسمع عشرة وصاري هالكا كردون كراي يهود ويابان وصل وردت حوالي إيموشنال أسكت قيرانة يا عاد استعمال كرتان بابا هشام بين وردت كحياة كنا رايين والذي كده جاية مدحوينها قرن كوالي مدحوين إسرائيل حرير لصم يصعدوا حرير لصم يصعد أردوغان حرير بوللي أو سعودي حرير بوللي أو الإمارات كحرير بوللي أنا وضل هذا السوكب عيا أنا هنا مدحوينها حسن شيخ محمود نواني وحبرتي وأقويها أنا ما هنين إيموشنال وسيدي أما نما مسير سما قفك مركو مسير عقلي كتاعه قفك مركو مسير سيء أركتم ماله قفك مركو مسير سيء ضد نما ماله قفك مركو مسير سيء عقدي حاسس نما قشة مركو من حوالي وتعصرونكم مسيفوهين سودال كان يهلك يحالدوا وجهي لا ما مدح أنا وجهي ما أنت كرسي كفرديان والله تركيا يسكدي بله يا إمارات كيو حتى مقال كيو رنا كل شيء وريك أوانين جيسي أتكيسي بدون كل ساعة كلها مدحونا شعب كسومالي دل يدي وكنت أجرسي أبو بتين مدحلا فيسبوك يا ليف كوبحية واحد ما بفهم يسيد بعضهم ما أنا كرنكت هذا كده من برامج كلها سيسكسر دوي تذكر بلا بلوشة كوجا تذكر مدحونا أو واحد
oo wado oo aragtidooda isticmaal oo ii sheeg intaad jiidi kartid jiid kii aan la jiidi karin da qof xun oo meel laga isticmaalo aan lahayn da qof xun lama wadi karo laakiin qofka meeshu ku wanaagsan yahay oo uu shaqayn karo adaa hore u sheegay madaxweyne hala shaqo geliyo waaye waxaan dul istaagayaa firdhiye xalay waa la yaabay laa ilaaha illa ninku jilacsanaa firdhiye allah baa laleeyahy allah ninku allah firdhiyaa jilicsan firdhiyaha 370 maxaabiista ah ee ugu xareysan tahay sidii xoolihii meel ku ootay baa jilicsan ummadda oo dhan isu tagtay ka furfuri weyda baa jilicsan firdhiyaha ciidankiisu ilaahay dharkeen ay furimaha uga jiraan oo ergaabo weerarka ku qaaday baa jilicsan firdhiyaha daraawiish ka dhashay baa jilicsan soo maaha jileeca haddaba magaca kalaa loo bixi yahuuddan aad leedahay adduunka oo dhan yahuud baa ugu fiican oo walaalahayn baa kaana fikta buu xoqaya jarmalkaan hadda baa magdhow siiya oo waana lalaayay hitler baana laayay maalin kasta waxay ku awrkacsadaan waana la dhibaateeyey saasaana la yeelay dad dhiban baana ku awrkacsada firdhiya isagoo aan cugdad qabin oo aan cidna dib u sheeganayn waxa meesha ka dhacay anigu goobjoog baan ahaa jarmalkaan uga soo duulay inaan intaan imaado magaalada laascaano aan indhahayga ku arko 25 bisha gooja cad wixii ka dhacay goobjoog baan u ahaa wixii meesha xasuuqi laga geystay goobjoog baan u ahaa ninka dhulbaanta intuu baxay hargeysa isagu ma tagin laakiin hargeysa looga soo duulay oo la fawadata mareeb jooga oo lagu casumay aabihii federaalka Soomaaliya waxa yaraan dul istaago galmudug oo dowlad dhiskii maanta Soomaaliyeed dekad dhiso dhul aeroboor dhiso wadooyin dhiso iyadoo kabka Soomaaliya ay siisana ama caalamka ka heshana ee in yar tahay inta kale cashuurteeda ay ku qabsanayso madaxtooyo dhiso horumar habar gidir baa qori diiday saamaanta isaaq qori laga qorigiyo yaaban baa meel halkan aniga xuf igu dhaafay heritage waa macad looga dood siyaasadeed xataa lagu qabtaa caalamka dhan baa lagu qabtaa marka halkaas uu ka hadlay wuxuuna sheegtay dhibari u dambeeyay waa run waa dhibare qof hadda isaaqaas maanta faanay oo leh alla ninku jilcsana isma qasanu la fawata war aniga ma jeerteen adiin sheegay marka waraaqaha caalamka u qorayo ummadda Soomaaliyeed kaba horsheego laakiin Puntland waraaqaha markay dirayso waxay ku dirtaa in dawladda Soomaaliya ay xasuuqday in dawlad dhiska ay qayb ka ahayd dawladda Cabdullaahi Yuusuf in ciidan iyo dad badan oo Soomaaliya uga dhinteen in baraaga laga sumeeyay in Soomaali laf dhabar u nahay al iyo kulli oo ku jirta alka marka anaga qaybteeda waa sheegana in baraagana laga duqeey in jabhadaas SSDF ila samaysanay in isha ummadda Soomaaliyeed magaceedu u dhib badan ugu soo gaaray way qoraan madaxda Puntland ana ku cadeynay way qoraan qof dambe ha weydiin marka qof kasta waa ay tahay dhibaatada soo gaadh inuu sheegto xataa cid kasta ana Yacquub Siyaad hor taagan baba sheeganayo adiga dhibari u dambeeyo inta waa kaftare dhibari guriga intay nima yimaadeen 8 aan shaqo ka soo baxay baabeerka laga garaa dakada halka laga dakhro meel kasta toori liga gali hadda wadana cayb lagu soo diray wax liga garaadka gabdhaha diray maxaanay gabdha 8 saac guriga ka qabanaya nin shaqo ka soo baxay ragii waxa sameeyayna iyagana Jarmalka gacanta ku hayo maxkamadaha Jarmalka xoogaa bay qaataan si xaqiiqi aanu kama tanaasurin sababtoo anina gurigiisa anigu ma aadan guriga aniga leegu yimi si dawladda martida u ahay wax shaqada aniga ii qabanaysan ina cid la aytamay cid inaas jijiidanay midna anigu diyaar uma marka qof walba waa lool fiyowan baa in inta dadku la dhawr waxaas aniga la yeer adna waxaas lagu yeer hadhowna aragtida Soomaalinimo iyo dalka sidii loo badbaadin lahaa iyo dadkan duruufaha la dhacaya sidii aragtidooda loo kobcin lahaa oo qofku si kalsooni loo laandheernimo oo wixii uu sheegto baa ay noqotay war firdhiyo kuma haasanta beesha caalamka u sheeg qaramada midoobay u sheeg maxkamadda caalamka u sheeg iigad u sheeg madaxweynaha Soomaaliya ugu celceli ummadda Soomaaliyeed ugu celceli manhajyada waqooyi bari Soomaaliya ha lagu dhigo dadkan inta guryahooda loogu yimi in xasuuq wadareed loo geystay in 17 caruura 14 family masaajida in la duqeeyay abwaankii ugu weyn Soomaaliya in kadiyay in meesha lagu dilay waliga ha ka tanaasulin inaad xaqaaga sheegato laandheernimo soo hartay nin daraawiishata oo awgiis bunduqna ku weesnaa jiray seefna ku weesnaa jiray Afrikana cidii ugu horeysay taariikhda oo diyaarada ugu duqeeyay inaad tahay cid kasta ko maanta uma baahan taariikh iyo uma baahan sawixii dhacay ina xal si calool fiyoole uga hadashay adiga siyaasiyiinta kale halka joogay oo qaarkood xitaa waqooyi galbeed difaaciyeen qaarkood adiga kula aragti ahaayeen waa aragti Soomaali isu soo dhaweynaysa ma aragti kale fogeynaysa ma reer waqooyi barina yaa waxyaabaha noocaas liidi kugu holaday waaye waxaan dul istaagayaa qodobkay u dambeeyo oo ah ilaaha uu isaaqna jeclaad cid ka reebaysa male meel walba ay tageen dadka reer Puntland baan u mahad celinaa dadka reer Puntland bal qodobka Soomaaliya dhagiina si fiican u dhageysta horta meesha Puntland la dhaho qabiilada degan ee daaroodka ah ma jirteen kaliya ma
waxa ugu badan waa qabiilada kale ee daaroodka ama majeertaanka iyo maxamuud salaawaabka meeshan ka badan daaroodka markii laga tago waxa kale oo Puntland dare wiilka madhibaanka ay meesha ku dhashay iyo wiilka jareerka ay Puntland ku dhashay iyo wiilka Isaaqa ay Puntland ku dhashay iyo wiilka Hawiyaha ay Puntland ku dhashay iyo wiilka xataa Carabta iyo Yemen iyo Suuriya ka yimi meesha ee Oromka ah ee Puntland ku dhashay baa horta Puntlander ah Puntland qof ma aha waa community waa umada isu tagtay qaar tolnimo isu keentay iyo qaar Soomaalnimo noo keentay wi waana Puntland state of Somalia magaca Soomaaliyeed bay anagu wax ku leenahay isaaq waxaan leeyahay hadaa idinku ninka la garanaya xididnimada iyo dawladnimada ma aha wiilkiisa gabar isaaq qaba meel kasta uu la taagan yahay isaaq anagu xidid baana isaaq anu waa garan waay wiilkiisa gabadha miyuu la wasa maxaa ku wareejiyay ileen dhul baahantay warsangeli inta ay isaaq ka qabaan oo isaaq arki waaye oo isagoo wiilkiisa gabar ka qaba kaliya uu saa ula daba waalay maxay mise wiilkiisa sixran oo gabadhu reerkan dhan waa sixirtay waligeeda Soomaaliis guursan jirtay Soomaalida dhan wiili abtigiisa ma system dawliya raysaayo oo wiilka isaaqa ay Puntland ku dhasho iyo wiilka daaroodka iyo wiilka raxweenka iyo wiilka madhibaanka iyo wiilka jareerka ba gacanta ku haysa xuquuqdoodii la rabaa kii kala saari lahaay markii waxa tahay qoys isaga qaad la raxlayn anu ma fahmin marka haday tahay inay xamar u dhisayaan haday tahay inay ninkan xamar u dhisayaan xamar ninka ku aadaya lacagta Puntland marka hore lacagta shacabka Puntland ku aad haddana wuxuu ugu socdaa waa lacagta shacabka Puntland waxa uu bahdilayaa maanta oo uu la aaminsan yahay oo la leeyahay reer Puntland aragtidaas ay qabaan waa aragti hal shakhsi kaliya ku midaysan way haddaad isaaq oo aragtida ay sheegaysaan oo ninka artaan dhisataan kulli lacag ma haysataan faqri baatina de ninka lacag ka bixiyo lacagtiisa ku dhista lacagta ninkan xamar ku aaday reer Puntland baas kale umada reer Puntlandna ninkan wuxuu ka dhaxyahay bahdul baahante reerkiisu waa midgo timay jiraan Puntland arwa ninkii ugu beenaya ee ugu dhaha hal degmo ba bahdul baahante ku leeyahay isaga koor qof bahdul baahante oo nool oo soconaya qof arkay ma jiro arwa qofkii igu yiraahdo waxaan arkay qof bahdul baahante Saciid Cabdullaahi Dani koor baan arkay oo soconaya xaq soo qalinka midida daabkeeda isagu ma hayo ku kaacaan waa aqaana nin raga uma uu daawanaya muuqaalka soo midida daabkeeda adigu ma haysa qalinka arbalaha iska dhaafina tira Soomaaliya ka goonay aragti kaliya baarlamaanka gee oo aan leedahay waxaan ka go'aynaa umada Soomaaliyeed inaan ka go'no bal afti baan u aragti ahaan dood kaliya gali dood kaliya gali wallahi cadiim wallahi cadiim wuxuu xabad ku tagayaa magaca qardo xabad ku tagayaa inuusan qardo ka sokayso uu si joogay bal aragtida kaliya baarlamaanka geey ila isaga madaxweynaha dalka Soomaa bal waa kaasay waa isaga sidii ciyaalkii attention buraadinaya in la raadiyo in la dhoomo hadlo wuxuu hadli waayay oo qaar CBB do Puntland virus ku wala dhaho oo xogaa xukuumadda naasiga nikaacay $200 ay siiso oo aan ka duwaneen la isticmaalo adu dad ruuf looga faa'iideysanayo oo qabiilada xataa Puntland ka dhex gooya aan ahayn dadkan dulmaan masaakiinta ah waa ay jiraan kuwa u wato oo markaas as leedahay dadka reer Puntland soo qora waxa soo qorta deegaanka ka soo jeedo iyo magaca jifidaada iyo in Soomaali in la kala jiro inaad taageersan tahay aftiba halka waa qaadaya waa kaasay bal qof reer Puntland soo qor waa kaasay qof reer Puntland ha soo qor aragti ah inaan raali kana in Soomaali la kala jiro wallahi cadiim qof Puntland joogo ku dhiira karayso jirin dadka reer Puntland dhiigooda iyo dhuuxooda waxa raacay Soomaalnimo raacday isaaq baan fariinteeda u dambeysay u diray walaalo anigu nima jeerteen aan ahay horta magacayga yeedhi tolkay dhul baantay warsangal indhaha aad ku arki weyday oo adigu aad maanta ku midaysan tahay habar jeclo iyo habar awal iyo habar yoonis aad ku midaysan tahay inaad khaafsaneen oo aragtida aad wada leedahay baan anigu hadaba laba aragti leeyahay aragti waa midda tolkay aragtina waa midda deegaankayga oo ah Puntland state of Somalia dadkaasna afkooda anaa ku hadla culimada Puntland baan afkooda ku hadla ismada Puntland baan afkooda ku hadla siyaasiyiinta Puntland baan afkooda ku hadla gabdhaha iyo wiilasha reer Puntland baan afkooda ku hadla ninka kaliya oo xuquuqda ka maqan oo Puntland gudaheeda uga maqan Soomaaliland uga maqan oo doodana ma ahi anigu dhuusa kantaroole la gadan karo ama umada Soomaaliyeed dhan way taqaan inaan shilin caada qaata ahayn kuwa isaaqa ay daawanaya aniga yaqaana oo aan ogoleen in Puntland gudaheeda isaaq lagu dulmiyo satolkay dhulbaantay warsangali indhaha aad ku arki weydaa anaga nagu arkaysaan war anigu jacaylka iyo nacaybka kama shaqeeyo anigu waxaan ka shaqeeyaa waxa weeye dastuur baan bartay iyo sharciyad baan bartay iyo waxaan bartay wada noolaanshaha iyo derisnimada deris anagu ma nihin anigu waxaan deris la ahay waqooyi bari baan deris la ahay halkana galmudug baan deris la ahayo walaalnimo iyo wanaag iyo sharaf aan ku wada nool adiga aqbal inuu waqooyi bari aad deris la tahay laakiin aniga
oo aad dhulkayga qayb ka mid a sheeganayso oo Siciid Cabdullaahi Daniyo aamusan oo aaminsan war Isaaq hadduu al-shabaab lahaan al-shabaabkii meesha ka bax war hadday xamar kuraas taalana waxaa soo qora madaxweynaha markaa joogaa soo qora reerkaana lacag aysa siineen xoolaha Puntland intuu haddana